السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضي داودي الملك استاد عالم كذا سجنتين halkan waa telefishinka caalamiga ah ee galbarwaaqo waxaan soo gaadhnaa mintii aan idiin soo gudbin warkeena caalamka warka waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdinaasir Saalax Maxamed qodobada warka caalamka ugu doorka roon waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay kulankii qorsheysnaa ee uu la yeelan lahaa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ee 12 bishan ka dhacaya dalka Singapore nin taajir ah oo dhashay dalka Mareykanka kaasoo gurigiisa hoostiisa ka qodayay god weyn oo uu ku galo haddii uu dhaco weerar ka kala cadeeyay inuu qofku been sheegayo iyo in kale oo lagu rakibay qaar ka mid ah saraakiisha wadanka Kenya Uganda oo ku soo rogtay cashuur dadka isticmaala baraha bulshada intaas waxay ahaayeen qodobadeena warka caalamka ugu doorka roon haatan iyo imikana iyadii oo fidsan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay kulan uu qorsheysan yahay in uu la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Mr Kim Jong Un in uu 12 bishan ka dhici doono dalka Singapore madaxweynuhu hadalkaasi ka sheegay kadib markii uu dhamaaday kulan uu aqalka cad kula yeeshay Kim Jong Un oo ah ergeyga sare ee ka socday xukuumadda Pyongyang nin taajir ah oo dhashay dalka Mareykanka kaas oo gurigiisa hoostiisa ku qodayay god weyn oo ugu talagalay haddii dhibaato weerar ay dhacdo in uu ka galo ayaa lagu furay dacwad dil ah kadib markii uu dhintay nin uu soo kireystay in uu godkaasi qodo booliiska ayaa ku eedeeyay in uu ninkaasi dayacaad iyo beelaha ku sameeyay naf bani aadam qalabka kala cadeeyay in qofku been sheegayo iyo in kale oo lagu rakibay saraakiil Kenyan ah oo maxkamad la soo taagay kadib markii la waayay lacag badan oo la musuqmaasuqay sidaas waxa sheegay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu madaxweynuhu Uhuru hadalkan ka jeediyay kadib markii la shaaciyay lacag la xaday oo gaadhisay 78 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo ay lahayd laanta horumarinta dhalinyarada Kenya wadanka Uganda ayaa cashuur lagu soo rogay dadka isticmaala baraha bulshada baarlamaanka dalkaasi ayaa ansixiyay qof kasta oo isticmaala baraha bulshada in laga qaado lacag dhan 20 shilin oo u dhiganta 0.0531 sanadkii oo dhan marka la sugayo lacagtaasi waxay noqonaysaa 19 dollar waxay dawladdu sheegtay in tilaabadaas ay kor loogu qaadayo dhaqaalaha laakiin dad badan ayaa diiday arrinkaasi oo ka soo horjeestay eedamana u jeediyay madaxweyne Museveni oo xilka dalkaasi hantiyay ama qabsaday 1986 daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta mudano intaas waxaa naga dhan wixii war dal iyo dibadda ka haynay oo aad ka daawanayseen oo kala socoteen channelkeena caalamiga ah ee galbarwaaqo haddaba si aad maalin walba ula socoto wararka meeshaas aan ku duubno fadlan subscribe